kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada qaybta 439aad ee barnaamijka Tubta Nabadda uu idiin soo gudbiyo howlgalka qaramada midoobay ee kaalmeynta kala guurka ah ee Soomaaliya UNTMIS. waad mahadsan tahay Faisa. maantana waxaan barnaamijka uga hadli doonaa kaalinta muhiimka ah ee xorriyadda saxaafaddu ka qaadan karto dhismaha nabadda, wadajirka bulshada iyo kor u qaadista xuquuqda aadanaha. aad iyo aad Cabdicasiis, doodani waxay ku soo beegmaysaa maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka oo la xuso sanad kasta 3 bisha May. Munaasabadan ayaa ah waqti la xasuusto baahida loo qabo difaacidda xorriyadda saxaafadda iyo in wariyaashu dib u milicsadaan qaababka ay wax u tabinayaan iyo anshaxa loo baahan yahay in ay dhowraan. waa sax Faisa, maalintani waa mid la xuso xorriyadda saxaafadda, la qiimeeyo xaaladda ay ku sugan tahay saxaafadda adduunka, lana difaaco madax bannaanida saxaafadda. waa maalin sidoo kale la sharfo suxufiyiinta ku waayay naftooda iyagoo gudanaya waajibaadkooda. xorriyadda saxaafaddu waxay tirdhaxaad u tahay waxyaabo badan oo bulshada muhiim u ah, sida ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo dhowrista xorriyadda hadalka. iyagoo u maraya shaqadooda waxay saxafiyiintu la xisaabtamaan mas'uuliyiinta la doortay, waxay ku caawiyaan muwaadiniinta inay noqdaan kuwo xog ogaal ah, taasoo u horseedaysa inay qaataan go'aamo wanaagsan, taasoo sidoo kalena dhisaysa kalsoonida dadweynuhu ku qabo hay-adaha dowladda, iyadoo sidoo kalena kor loo qaadayo horumarka. marka la eego Soomaaliya, waxaan arkaynaa arrimo dhiirigelin leh. qaramada midoobay waxay si dhow la shaqaysaa suxufiyiinta Soomaaliyeed iyadoo u maraysa barnaamijyo lagu xoojinayo aqoontooda, korna loogu qaadayo xirfadahooda iyo wacyigooda ku aadan xuquuqda aadanaha. taasi waa mid sax ah. dowladda Soomaaliya ayaa iyaduna qaaday tallaabooyin muhiim ah oo sare loogu qaadayo xorriyadda saxaafadda oo ay ka mid tahay la shaqaynta ururada saxaafadda si loo hagaajiyo badqabka iyo arrimaha kale ee saxafiyiinta muhiimka u ah. kuwani waa tallaabooyin loo qaaday dhanka daahfurnaanta. si kastaba ha ahaatee Faiso, inkastoo ay jiraan dadaaladani, haddana saxafiyiinta Soomaaliyeed waxay wajahayaan caqabado xooggan. hanjabaadaha iyo cabsigelintu waa kuwo baahsan. xogaha qaramada midoobay waxay muujinayaan xaalado adag oo ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta Soomaaliyeed. sanadkii 2022 waxaa Soomaaliya lagu dilay 2 wariye halka la dhaawacay 5 kale. waxaa isla sanadkaasi la xiray ama xorriyadda laga qaaday 74 wariye iyadoon loo marin nidaam sharci ah. ururada caalamiga ah ee saxaafadda sida Macadka Caalamiga ah ee Saxaafadda International Press Institute iyo Guddiga Ilaalinta Saxafiyiinta CPJ waxay Soomaaliya u arkaan mid ka mid ah meelaha ugu halista badan ee ay wariyaashu ka shaqeeyaan. tani waa mid walaac leh, gaar ahaan marka aan eegno sida qodobka 18aad ee dastuurka ku-meelgaarka ah ee Soomaaliya uu ballan qaadayo xorriyadda ra'yiga oo ay ka mid tahay xorriyadda hadalka iyo saxaafadda. wuxuu sidoo kale dastuurku damaanad qaadayaa xaqa bulshada u leedahay inay xog hesho isla markaasna dhiibato aragtideeda. haddaba si aan arrintan wax badan uga ogaano, waxaa istuudiyaha nagula sugan Cabdilaahi Xayir Ducaale, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya, iyo Faarax Cumar Nuur, xogayaha guud ee isu-tagga saxafiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ. agaasime, haddii aan adiga kugu bilaabo, sidee ayay wasaaradda oo kaashanaysa hay-adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah sida qaramada midoobay uga shaqaynaysaa wax ka qabashada caqabadaha xorriyadda saxaafadda ee ay la kulmaan saxafiyiinta Soomaaliyeed? wasaaradda waxay diyaarisay sharciga saxaafadda, sharci lambar 26 oo kala hagaya saxaafadda madaxa bannaan, saxaafadda dowladda iyo dadka ka shaqeeya saxaafadda oo dhan. waa sharci u dhaxeeya. waxa uu dhigayaa waxa la yidhaha Media Council, guddiga adeega saxaafadda ayuu dhigayaa oo dowladdu ay ansixisay oo hadda shaqeeya. wax kasta oo soo baxa oo sharci ah ama wax kasta oo la sameeyo ama rule ama sharci ah, dad diidan iyo dad ogol labadaba iska jiraan, laakiin waa inuu yahay mid ka tarjumaya inuu dadka wuxu taro waqtigana la socdo. marka sharcigaas uu jiraa waana lagu shaqeeyaa. wasaaraddu waxay aqoonsatay sharciga saxaafadda iyo inaan lagu xadgudbin qofka saxafiga ah ee madaxa bannaan iyo ka dowladda u shaqeeya labadaba. marka sharciguna wuu kala hagayaa. wasaaraddu markaa freedom express waa waxay aaminsan tahay oo de qaramada midoobay ina ay aqoonsan tahay maalinta saxaafadda iyo xorriyadda saxaafaddaba. marka wasaaraddu aad iyo aad bay saxaafadda madaxa bannaan xiriir wanaagsan ula leedahay ururada saxaafadda madaxa bannaan, kuwa telefishinada, kuwa idaacadaha iyo dadka kale ee meelaha wax soo saarka iska leh ee muxuu ahaay saxaafadeed. wasaaradduna xeerka iyo sharcigana way ku shaqaysaa. saxaafadda xorta ahi waa tirdhaxaadka dimuqraadiyadda. aragtidaada
sidee saxaafaddu uga qayb qaadan kartaa nabadeynta, dib u heshiisiinta iyo xasiloonida Soomaaliya? saxaafadda madaxa bannaan waa tiir dhexaadka dimuqraadiyadda, nabadeynta iyo dib u heshiisiinta. waa wax sax ah. iminka tusaale ka soo qaad waxa ay dowladdeena oo madaxweynuhu hogaaminayo Dr. Xasan Sheekh Maxamuud dagaal culus kula jirtaa argagixisada al-shabaab, daacish iyo wixii lamid ah argagixisaa. marka saxaafadda madaxa bannaan iyo saxaafadda dowladduba waxay iska kaashadaan sidii ay dadka Soomaaliyeed ee dibadda ku dhaqan iyo kuwa gudaha ku dhaqan iyo beesha caalamkaba ugu gudbin lahaayeen warbixino iyo warar tafaftiran oo ku saabsan qaabka loola dagaalamayo. aad baanu saxaafadda madaxa bannaan nagala shaqeysa ugu ammaanina arrintaas. sidoo kalena arrinta nabadda wax weyn bay ka geysan karaan saxaafadda madaxa bannaani, dadka oo loo kala geeyo ama loo tabiyo warar iyo wacyigelin ku saabsan nabadda iyo faa'iidadeeda, dowladdiska say uga qayb qaadato, dadka iyo horumarkooda say uga soo qayb qaadato. dib u heshiisiinta oo kale marka ay beeluhu ama gobolladu ama laba beelood isku dhacaan, haddii ay saxaafaddu ama dowladda iyo ta madaxa bannaaniba ka wada shaqeeyaan in dadka loo tarjumo wixii dhacay inuu khalad ahaa, in aanada qabiilka la iska dhaafo, in dadku ay walaal yihiin, in gobolladu ay isku mid yihiin, in dowlad goboleedu in hal dowlad nahay, waxay markaa dadku ay keenaysaa inaanay hubna isu qaadan oo ay dib u heshiisiiyaan, nabaddana ka qayb qaataan, dimuqraadiyadda iyo dib u heshiisiintana ka qayb galaan. haddii markaa ay saxaafaddu kiciso ololayaal ka dhan ah nabadda, muxuu ahaayey dimuqraadiyadda iyo dib u heshiisiinta, taa laftigeedu waa bele abuur. marka waa ta aan loo baahnayn. marka saxaafadda iminka madaxa bannaan iyo ta dowladdu waxay ka shaqeeyaan wacyigelin iyo dadka inay warar siiyaan iyo dadka in dib u heshiisiin loo sameeyo, inay nabad helaan, inay dimuqraadiyad iyo doorasho madax bannaan helaan. marka hadda iminka cid aan farta ku fiiqayno oo aan ka shaqeynayn nabadda iyo dib u heshiisiinta dimuqraadiyadda ma jirto. waxaanu jecelnahay inay halkaa uga sii dhowaadaan. ugu dambayn, maxay tahay fariinta aad u diri lahayd saxafiyiinta Soomaaliyeed ee xusaya maalinta xurriyadda saxaafadda adduunka? su-aashan waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah, waxyaabo badanna wadata. 3 May oo loo aqoonsan yahay maalinta saxaafadda adduunka, saxafiyiinta Soomaaliyeed waxaa la gudboon in ay aad iyo aad uga qayb qaataan sidii ay dadka ugu gudbin lahaayeen warar run ah, xaqiiqo ah, ku salaysan dalkooda xaaladda uu marayo, ka tarjumaya saxafiyiintu inay dalka dibdhis ku sameynayaan, inay ka qayb qaataan nabadeynta, dimuqraadiyadda iyo dib u heshiisiinta. in xitaa haddii warka uu run yahay oo uu jiro oo laakiin uu abuurayo fidmo, inay dib u dhigtaan oo waqti uu ku habboon yahay faafiyaan oo aan la isdilayn. marka waxaan leeyahay hambaliyo maalinta saxaafadda caalamka ee 3 May, hambaliyo saxafiyiinta Soomaaliyeed hadday yihiin kuwa dowladda u shaqeeya, kuwa barayfadka ah, hambaliyo ururada saxaafadda. waxaan leeyahay dhammaanteen saxafiyiinta Soomaaliyeed hay isugu tagaan sidii dalkan dowladiskiisa, nabadeyntiisa, dib u heshiisiintiisa iyo dimuqraadiyadiisa aan uga wada shaqeyn lahayn, ummaddana ugu gudbin lahayn wax isjeclaysiinaya, wax dowladda dhisaya, wax ummadda isu keenaya, wax colaadaha yareynaya, wax shabaab la dagaalamaya oo waddankana nabad ka dhigaya. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay dhegeystayaaalkaasina wuxuu ahaa Cabdulaahi Xayir Ducaale, agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya oo marti noogu ahaa barnaamijka Tubta Nabadda. iminkana dhegeystayaal aan u gudubno wareysi aan la yeelanay Faarax Cumar, xogayaha guud ee ururka isku tagga suxufiyiinta Soomaaliyeed ee FESAJ. wuxuu ugu horeyn ka jawaabayaa su-aal ku saabsan xaaladda xorriyadda hadalka ee Soomaaliya ka jirta. wariyaasha duruuftoodii waa intaad sheegtay oo weligoodba wariyaasha Soomaaliya duruufo waa haysteen, laakiin sanad kale sanad inay xoogaa yarin maadaama moodid markuu sanadka bilaabanayo haddana gadaali ka soo karaaranayaan oo culeyskoodii gadaal ka soo baxaa. marka duruufahoodu waa adag yihiin weli sidii muxuu ahaa ay u taagnaayeen u taagan tahay. marka waana taa ugu daran maanta haysato waxa weeye cabsi weyn oo dhinaca inay ku shaqeeyaan xorriyaddii saxaafadda ku shaqeeyaan, sharciga saxaafadda iyagoon baalmarayno haddana cadaadis badan kaga imaanay dhinacyo badan oo ku keenayo in la jir dilo, in la garaaco, in la dilo. marka weli ma dhammaanin xaaladahaas, waa taagan yihiin oo duruufaha adaga oo sanooyin badanna soo socday. sidee ayay FESAJ u taageertaa wariyaasha Soomaaliyeed? maxayse yihiin isbedelada loo baahan yahay in la sameeyo si loo hagaajiyo duruufaha sharci ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta Soomaaliyeed? FESAJ ahaan annaga waxaan u taageernaa wariyaasha inaan tababaro siino
oo la xiriira arrimaha bidqabkooda arrimaha xirfadooda sida ay u shaqeynayaan xorriyadda saxaafadda uga shaqeynayaan sida ay macnihii waddankoodii ay dhismihiisa qayb uga qaadan lahaayeen maadaama social media dad badan ay ku wada jiraan oo waryaalna ahayn magacii waryaal wakayaalna ay yihiin qaar badan taasaa maaragtay sumcaddii oo waryaashiina dilaysa iyo waryaashii qaarkood oo laftigoodii meelihii ka shaqeynayna duruufahoodii lacagta xagga mushaaraadkooda intuu yaraaday beejaj iska furto oo raadinaya inay helaan magac helaan iyo inay wax ka sameeyaan lacaga marka dhaqaale ahaan u kabtaan marka waxyaabaha annaga aan ku taageerno waxa waaye inaan tababar siino fiican oo dhinaca anshaxa khaladaad badan si aynan u sameynin dhinaca anshaxa dhinaca bidqabkooda dhinaca maaragtay sharciga sida loo ilaalin lahaa dhinaca maaragtay xirfadooda siday u wanaajin lahaayeen iyo marka ay dhibaato ku dhacdo amaba la xiro oo aan ugu noqon lahayn cod ugu noqon lahayn oo maxkamadaha iyo uga difaaci lahayn si ay u helaan cadaalad u helaan marka difaacina ugu horeysa taas waaye qaybahaas waaye laakiin haddana markay wax walba soo baxaan waxaan jeclahay inay nala socodsiiyaan si aan anagana u difaacno ugu dambeyn maadaama aan joogno wakhti ay xooggan yihiin been abuurka wararka iyo kala qaybinta kaalinta wariyaasha ee wargelinta bulshada waa ka muhiimsan tahay sidii hore haddaba maxay samayn karaan wariyaashu si arrintaasi wax looga qabto loona ilaaliyo kalsoonida dadka maadaama social media amaba barihii bulshada ay noqdeen qaar aada u baahsan wariyaasheena qaarkoodna ay ku jiraan xaaladaha wariyaasha aada maaragtay u tixgelinaya sharcigan ilaalinaya anshaxoodan ilaalinaya saa ku shaqeynaya haddii ay macnihii ay rabaan inay horumar sameeyaan waxa waaye kaalinkoodii wuxuu noqonayaa kaalin aada muhiim u ah marka duruufahan jiro oo barahii bulshada aada loogu batayna qaybta ay ka noqonaan wacyigelinta ay ka sameyn karaan waxay noqonaysaa inay aada u degtoonaadaan sharciga waddanka ilaaliyaan xeerka saxaafadda ilaaliyaan inay muxuu ahaa anshaxooda ilaaliyaan in waxyaabaha dadka ay qorayaan aysan muxuu ahaa dowladoo kale laga qoraayo oo muxuu ahaa waxyaabo badan lagu eedanaya wadanimadii inay aada u ilaaliyaan oo arrimaha qaarkood oo sharciga la xiriira oo inay aada u ilaaliyaan in marka wax laga qoraayo inay bartaan ay u baahan tahay markay meel wax ka qorayaan markay wacyigelin sameynayaan waa inay maarata aada u taxadiraan waana la tashan karaan annaga mawduucyada qaarkood marka ay timaado sida wax loogu qoraayo iyo xaaladda hadda lagu sugan yahay marka waxay u baahan tahay miisaan fiican oo wariyaasha inay saaraan arrimaha duruufaha taagan xaaladaha soo kordhaya mararka qaarkood xaaladaha soo kordha waxay u baahan yihiin in miisaan fiican la saaro si wariyaasheenna aan ku kalsoonahay aysan muxuu ahaa u noqonin dad meeshaas maaragtay iyaga laftigoodii shaqadoodii ay wax ka soo gaarto marka talada kale aan siinaya dadkan waxaa waaye dadka sharciga haya amaba dadka macnihii booliiska oo kale inay ilaaliyaan aysan ku kadsoomin wariyaasho khalad yar hadduu dhaco inay boobin qalabkooda inaysan maaragtay iyagana waxyeello u geysanin aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa faarax cumar nuur xogayaha guud ee isku tagga saxafiyiinta soomaaliyeed ee fesoj oo marti noogu ahaa barnaamijka tubta nabadda iminkana dhegeystayaal ku soo dhowaada heesta xaqdhowr oo uu ku luuqeynayo sidi cali wiinkey heestaasoo ka hadlaysa muhiimadda ilaalinta xuquuqda aadanaha kasiman sowra iyo sharaf sifooyinka goobannimo oo dhan sinaba uma kala sarey allah simay oo abuuray
suldaan noloshu hayna samaato xumaanoo dhan hasuushe qof kastoo saaran dunida ha helo saamiga xaqiise ha noqon keligii suldaan waa hagaag dhegaystayaal aan intaas uga gudubna heesta xaqdhowr iyo fanaanka siidiye caliwiinkey waxay ugu dambeysay barnaamijkeenii tubta nabadda oo toddobaadkan halkan ay idinkala socodsiinayeen cabdicasiis maxamed diiriye iyo anigoo ah faa'ise cabdi warsame fadlan noo soo gudbiya aragtiyadiina idinkoo noogu soo hagaajin karaa barta aan ku leenaa facebook oo ciwaankeennu yahay tubta nabadda hase yeeshee waxaad hadda u diyaargarowdaan qaybtii ugu dambeysay barnaamijka oo ah qaybtii qadadka taleefanada adinkoo naga soo wici kara taleefan nambarada idaacadaha aad barnaamijkan ka dhegaysanaysaan